Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Professor Amare oo ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirto Daacish. Haddaan u cusubtiin subscribe noo saaro. Haddaan kasii socdo, Professor Amare wuxuu yidhi Daacish dagaalkay kula jirto Puntland waa in lagu taageero. haddaad xataa waxba qaban karin aan niyadda ka taageertid. hadaladiis waxaa ka mid ah sida tan dhegeysi wacan. ka idhaahdo oo waajib bay u tahay muqadasa. nin kasta oo Soomaaliya oo damiir leh oo dadnimo ku jirto waa waajib bay ku tahay inuu ka hadlo. waxay waajib ku tahay inuu dagaalka Puntland niyadda iyo qalbiga labadaba uu kala socdo. haddaanad wax tarayn waa inaad niyadda ka taageerto. dagaalka Puntland Soomaali oo dhani waa inay ka qayb gasho oy qayb ka noqoto oy ka hadasho oo ku taageeraan Puntland. dagaalka ay ku jirto waa dagaal xaq. ilaahay baan ugu dhowaanaynaa. Puntland dadkii Soomaaliyeed dhulkii Soomaaliyeed baa lagu soo duulay. dal ayna waxba inaga dhaxayn oo ina wax inaga dhaxeeyaa jirin ayaa dalkeennii degay oo saldhigya ka samaystay oo la dagaalamayaan. xaq bay ku dagaalamayaan. ninkii taageera niyadda ka taageera iyo dhaqaale ku taageera ay garab istaaga maanta ilaahay buu ugu dhowaanaya. Professor Amare wuxuu sheegay waa hadal run ah. Puntland waa hooyadii Soomaaliya. waa dadkii dowladda Soomaaliya geeyey Muqdisho villa Soomaaliya oo lagu kariyo digir oo digsiyaal yaalaan. oo dadkii halkaa geeyey oo dhallinyaradoodii ay ku dhammaatay. qarashkii dowladda ku baxayey allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa. Cabdullaahi Yuusuf qarashka Puntland ee ka soo baxa Boosaaso iyo dekedda iyo ganacsatada Puntland qarash ka soo baxa canshuurta ka soo baxda ayuu ciidamada ku bixin jiray. waana dadkii halkan inay dowladda Soomaaliya la sheego dadka geeyey waa reer Puntland. Cabdullaahi Yuusuf allah u naxariistee asaga ayaa halkaa geeyey dowladda. Cabdiqaasim Salaax Xasan saad ku ogtihiin waa loo diiday markii lasoo doortay inuu tago villa Soomaaliya. waa loo diiday. madaxtooye gaaruu samaystay. xilligiisiina asoon waxba qaban baa Cabdullaahi Yuusuf la wareegay. haddana dowladdu Soomaaliya meesha ku shaqayso Puntland baa gaadhsiisay. laakiinse xasan sheekh nacayb uu necab yahay reer Puntland ayuu ku taageeri la'yahay inuu hal mar dhaho xataa waan taageersannahay. xasagoo necab Puntland inuu afka uu qurxiyo xataa waa awoodi la'yahay. waxaadna ku garanaysaa inuu Puntland necab yahay. hadda ka hor doorashadiisa horena galmudug buu hubeeyey. hala weerar uu dhahay Puntland waa lagu guulaysan waaye. marka waxaan dhihi lahaa xasan sheekh xamse hadda hadal buu yidhi waa taageersannuhu dhahay. wax kale oo laga hayo xasan sheekh haba yaraatee afkiisa uu ku hadlay ma jirto. waxaana dagaalkan taageeray waa ciise oo Jabuutiya. markii Ismaaciil Cumar Geele laga soo reebo, Ismaaciil Cumar Geele asagu waa necab yahay Puntland iyo daaroodba in la sheego waa necab yahay. daarood buu u arkaa. markii laga soo reebo shicibkii ciise weeye waxa taageersan oo taageeradooda sheegay. khaatumana way sheegtay. Jubbalandna horey u sheegtay waxay tiri waa taageersanna weliba garab baan idinku siinaynaa. laakiinse waxaa fashilmatay dowladdii Soomaaliya iyo xasan sheekh oo afaare qabiilista ah oo kursiga hadda uu ku fadhiyo dadka ku fariisiyey ay yihiin reer Puntland iyo reer Jubbaland. laakiinse qofka dee hadduu caqli leeyahay caqligiisu wax ku garan lahaa. xasan waxaan u malaynayaa dhuusada dameerka ayaa wax u dhintay
madaxiisa marka laga fili mayo qof wax tarayna dee u mahad celin mayo mana uu ammaanayo damiirkiisa saas tusay barnaamijka halkaas uga baxaya daawashadeen oo ku mahadsantihiin laagta noo saaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday